adduunyadu qiimo badan ma laha waa meel lagu gaboobo adduunku gabowbaa yaalla 4 cudur oo aakhira aan oolinba adduunka yaalla cudurka koowaadi waa gabow adduunka waa lagu gaboobaa ninkii quruxda badnaa ee lixaadka lahaa ee timihiisii gadh iyo madaxba madoobaayeen ee indhihiisu fayda ahaayeen ee u tallaabsanaya layaabka lahaa mise waa gabowo gadhkii timihii waa caddaadeen indhihii araggii waa soo guray dhegihii waa cuslaadeen hadalka kor igu qaad buu ku leeyahay ninka itaal roonaa oo ka qurux badnaa ninkaas waxaa lagu leeyahay weli lama arag ninkaas ku dhexdhacay aad moodid shay naqaska laga saarayo kale waxa badan markaa maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan wax yar yaroo sakayna ku mashquulaan waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixisay iskuulka yaad saaqidin oo ka warran yowmul qiyaama haddaad saaqido maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka warran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceebowdo yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya reer nebi aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka warran maalinta 50,000 oo sannadooda noloshaynu joognoo dhammi waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka warran maalin 50,000 oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba laysla gaadhin hadduu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada uu isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado adduunku waa meel lagu gaajoodo gaajaa taal intaa waxaad maqlaysaa waxbaa dhammaaday waxbaa go'ay waxbaa intaa kale waxaysan adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugtaa taalla waxaa dhakhaatiirtu dabaqya dhisatay jaamacado looga soo baxay kaadha loo goosanaya farmasiya loo furtay waa idinka arkay bugtaa taalla adduunka geeri baa taalla noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taalla yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyada ma dhammaystirmayso لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان إن آدم هدي لسيه تك ذهب وصعد بو نبي يقولي كل بعض بو جعلان بو يري هدي كل بعض لسينا قصد حاد بو جعلان بو يري إن آدم أفقي سوحك لما بو حيانه قبرك مركا لقليه عيدا لقو قرون بو درقاب رسولك يري markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinaya inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan ahlu janna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhira shaqa kuma laha adduunka waxay goosanayaan goostan laakiin aakhira doctor iyo dhakhtar iyo waxa lagama yaqaano jannada dhexdeeda inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibkaa eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel aad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu 33 jir baa tihiin isku fil baa tihiin waa awowgaagii tobnaad meeshan aan lisba soo gaadhaynba inna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan
adduunyadu mar waa guug mar waa dayr mar waa diraac mar waa jiilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato biri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu odhanaya waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maaha way ku aftaqaannaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xoogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waa tan waa ku aftaqaannaaba iska hurhudhun weeye wixii kale adeegahana ikhyaar baa laguu sameeyey wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an mansuura wiilasha meeshaad joogo quruxda haddaad aragto luul saa meesha loogu firdhiyey baad mooddaa baa ilaahay leeyahy subxana wa tacaala waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waad tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weyddiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed aakhiro waa meel aan lagu dhiman geeri ma jirto inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan waxaad leedihin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan meeshaasaa qofka mu'minka ah ee wax fahmaya halkaasu inuu u shaqaysta la rabo ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan 4 shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo dariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintayna alla inaga yeelo subxaana wa tacaala